boqorkii iyo waayeelkii xigmadda badnaa. Tani waa sheeko aad iyo aad u xigmad badan, isla markaana beryaha ka mid ah dhaxmartay oday waayeela oo aad u xigmad badnaa iyo boqorkii ka talin jiray boqortooyadii uu odagaasi ku noolaa. Balse inta aanan bilaabin sheekadeenna, su'aasha muuqaalkan waxay noqonaysaa: sheeg nabigii qoomkiisu ay dhammaantood wada beeniyeen, hal qofna uusan ka rumaynin. Mar kale haddii aan ku celiyo, sheeg nabigii qoomkiisu ay dhammaantood wada beeniyeen, hal qofna uusan ka rumaynin. Waxaan filayaa inaad fahamteen su'aasha, isla markaana aad ka jawaabi doontaan. Fadlan haddii aad garanayso, isla haddaba nagula wadaag sanduuqa faallada si ay kaaga faa'iidaystaan walaalaha muslimiinta ah. Haddii aadan garanayna, muuqaalka dhammayso, qaybaha ugu dambeeya ayaan uga jawaabi doonaa insha Allah. beryaha ka mid ah ayaa waxaa jiri jiray oday waayeela oo aad u xigmad badan. Odaygaas waayeelka ah wuxuu ku noolaan jiray mid ka mid ah boqortooyooyin yaryar oo dhammaantood hoos tegi jiray hal boqor oo weyn. beryaha ka mid ah ayaa odaygii waayeelka ahaa oo waddada iskaga socda waxay indhihiisu ku dhaceen hal shilin oo macdan ah oo waddada dhexdeeda yaala. odaygii waayeelka ahaa ayaana aaday shilinkii xaggiisa, gacanta ayuuna ku soo qabtay. Balse markii uu shilinkii gacanta ku soo qabtay ayuu dareemay inuusan shilinkaas u baahnayn, isla markaana uu raalli ku yahay uuna ku qanacsan yahay noloshiisa. Sidoo kalena hal shilin oo uu waddada ka helay uusan noloshiisa waxba ku soo kordhinaynin. Sidaa daraaddeed ayuu odaygii xigmadda badnaa wuxuu go'aansaday inuu shilinkaasi ugu tabaruco, isla markaana uu siiyo qof u baahan oo asaga ka sii liita. odaygii waayeelka ahaa ayaana bilaabay inuu maalintaas oo dhan waddooyinka magaalada ku wareego, asagoo raadinaya qofkii uu siin lahaa shilinkan. Inkastoo uu muddo dheer raadinayay, isla markaana uu aad u raadiyey qofkii uu siin lahaa shilinkan, haddana wuu waayey qof ku habboon inuu siiyo shilinkan. Maxaa yeelay dhammaan dadka boqortooyadan ku nool waxay ahaayeen dad shaqaysta oo wax haysta, isla markaana hal shilin aan u baahnayn. odaygii xigmadda badnaayna markii uu maalintii oo dhan wareegayay, isla markaana uu soo waayay qof uu siiyo shilinkaas, ayuu galabtii iskaga soo laabtay gurigiisa. Sidaas ayuuna habeenkaasi iskaga seexday ayadoo jeebkiisa uu ku jiro halkii shilin ee uu waddada ka soo qaaday. subaxdii xigtay ayuu waayeelkii xigmadda badnaa wuxuu ka soo kacay hurdadii, wuxuu dukaday salaadii fajar, kadibna wuxuu bilaabay inuu adkaartii akhristo. Asagoo adkaartii akhrisanaya ayuu wuxuu meel fog ka arkay boqorkii iyo ciidankiisii. waayeelkii xigmadda badnaayna markii uu si fiican u eegay wuxuu dareemay in boqorka iyo ciidankiisu ay duulaan ku yihiin, isla markaana ay rabaan inay ku duulaan boqortooyo kale. boqorkiina markii uu arkay odaygii waayeelka ahaa ee xigmadda badnaa oo waddada agteeda taaganna wuxuu ciidankiisii ku amray inay istaagaan. Kadibna boqorkii ayaa u tegay odaygii waayeelka ahaa wuxuuna ku yiri: adeerkan xigmadda badanow, anigu waxaan hadda duulaan ku ahay, isla markaana aan rabaa inaan ka soo guulaysto boqortooyo kale si aan boqortooyadayda u ballaariyo. Haddaba adeer, waxaan rabaa inaad igu caawiso xigmaddaada si aan u soo guulaysto. waayeelkii xigmadda badnaayna cabbaar ayuu fakiray, kadibna jeebkiisa ayuu gacanta geliyey, wuxuuna ka soo bixiyey halkii shilin. Boqorkii ayuuna siiyey. markii ugu horreysayna boqorku aad ayuu u yaabay, wuuna fahmi waayey waxa uu odaygu ula jeedo halka shilin, maxaa yeelay boqorku ma uusan garanayn wax uu ku sameeyo hal shilin. Sababtoo ah boqorkaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah boqorrada ugu qanisan caalamka, wuxuuna lahaa kaydad aad u waaweyn oo dahab iyo lacag ah. boqorkii ayaana odaygii ku yiri: adeer, maxaad ula jeedaa shilinkan aad isiisay? odaygii ayaana arrinta u faahfaahiyey, wuxuuna ku yiri:
boqorow shalay ayaan shilinkaas helay xilli aan marayay mid ka mid ah wadooyinka magaalada sidaa daraaddeed ma aysan jirin baahi igu kalifaysa inaan isticmaalo waxaana go'aansaday inaan raadiyo qof u baahan oo aan siiyo shalay oo dhan ayaana magaalada iyo daafaheedaba ku wareegayay waana waayay qof u baahan oo shilinkaas iga qaata sababtoo ah dadkoo dhan waxay ahaayeen kuwo aad u faraxsan waxayna aad ugu qanacsanaayeen waxa ay haystaan mana aysan u baahnayn halkaa shilin sidaa daraaddeed ayaana u waayay hal qof oo iga qaata halkan shilin boqorkuna xilligaasi si wanaagsan ayuu u dhagaysanayay hadalka waayeelkaani xikmadda badan waayeelkii oo hadalkiisa sii wata ayaana yiri laakiin maanta ayaan ogaaday in adiga oo ah boqorkii weynaa aad u baahan tahay wax dheeraada isla markaana aadan ku qanacsanayn waxa aad haysato sidaa daraaddeed ayaan dareemay inaad u baahan tahay halkan shilin kadibna waan ku siiyey markaas ayuuna boqorku ogaaday inuu qaldanaa isla markiina wuxuu ka laabtay go'aankiisii ahaa inuu ku duulo boqortooyo kale isla markaana boqortooyadiisa uu ballaariyo boqorkii oo dadkii kale sii waaninaya ayaana yiri dhammaanteen waxaa waajib nagu ah inaan baranno sidii aan nafteenna ugu qancin lahayn waxa aan haysanno dhammaanteen waxaan raadinaynaa wax ka badan isla markaana ka wanaagsan waxa aan haysanno laakiin taasi waxay naga dayacaysaa fursaddii aan ugu raaxaysan lahayn waxa aan haysanno waxaa jira dad aan haysan waxa aad haysato sidoo kale waxaa jira dad haysta wax aadan adigu haysan sidaa daraaddeed qofna adigu ha isbarbar dhigin ee noqo qof ku qanacsan waxa uu haysto kuna noolow nolol qanacsanaan leh markaas ayaa dareemaysaa qiimaha nolosha ugu dambayn haddii aan ka jawaabo su'aashii muuqaalkan oo u dhacaysay sida tan sheeg nebigii qoomkiisu ay dhammaantood wada beeniyeen hal qofna uusan ka rumaynin su'aashaas jawaabteedu waa nebi luut calayhi salaam mar kale haddii aan ku celiyo waa nebi luut calayhi salaam waxaan filayaa inaad fahamteen su'aasha iyo jawaabteeda intaba